السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك حيران مركز النجاح أونلاين وإذن سلام يا ما أنت وحان إذن وضع موضوع كجديسن مواضيع دي أو هرين وجبرتين عربي جاها موضوع ما أنت عن إذن وضع وحويه وسؤاله يجوابه كصابسن وحويه قرآن كريم جاه سؤال iyo jawaabo ku saabsan quraanka kariimka ah waxaan soo wadnay kitaab la oran jiray Tacliim al-Arabiyya linaadiqina biqayriha kitaabkii uu soo gabagaboobay insha Allah ta'ala waan bilaabi doonaa kitaab kale oo ah Carabiya kitaabka kale talo wuxuu noqon doonaa duruus luqada al-Arabiyya linaadiqina biqayriha wuxuu noqon doonaa al-Arabiyya bayna yadayk kitaab kale ayuu noqon doonaa Allah ya'lam لكن سمعت موضوعنا وكجدسين عربي موضوعنا وسؤاله يجوابه قرآن الكريم كأفصابسن صدح سؤالات وسؤالها سكملة واللي سويدينيا إذن كأيان دي ويدينيا وأنا تكسر جواب استان هدي له يدمه صدح ذا سؤالات وأنه ريسيننا سؤالها كلنا وحوي قدال أيان مريننا أنا أيان إذن كجوابي سؤالها كلنا haddaba su'aalaha aan idinka idin weydiinayo waxa ay yihiin sidatan su'aasha koowaad waxay tahay aayadda ugu dheer quraanka kariimka ah waa aayadii aayadda quraanka kariimka ugu dheer waa aayadii su'aashaas idinka ayaa la rabaa inaad ka soo jawaabtaan su'aasha labaad ee aan idin weydiinayo waxay tahay waxaad sheegtaan laba suuradood oo quraanka kariimka ah ka mid ah oo bisinkeeda bacda uu shadan yahay suuradaha kale bisinkeeda bismillah marka la dhaho bacdaas bisinku uu ka bilowdo mashadna laba suuradood kaliya ayaa bisinka bacdu ay shadan tahay labadaas suuradood ayaa soo sheegaysaan sababta keentayna waa sheegaysaan shadka in uu meesha u yimaado oo bisinka la shado bacda maadaama quraanka bisinka ku jiro oo dhan uusan shadnayn labadaas suuradood oo kaliya uu shadan yahay su'aashaas waa su'aasha labaad su'aasha saddexaad waxay tahay waxaad sheegtaan saxaabiga quraanka kariimka ah lagu sheegay ee kaliya hal saxaabi oo kaliya ayaa quraanka kariimka lagu sheegay saxaabiga magaciisa ayaa la idinka rabaa haddii aan u gudbo su'aalihan aan idinka jawaabi lahaa su'aasha koowaad waxay tahay maxay tahay aayadii ugu dambeysay ee quraanka kariimka ah ee soo degta culimadu way ku kala aragti duwan yihiin oo isku khilaafsan yihiin aayadda ugu dambeysay ee quraanka soo degta laakiinse waxay u badan yihiin inay tahay wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah su'aasha xigta waxay tahay ma hiya ummul qur'aan suurada la yiraahdo hooyada quraanka waa tii hooyada quraanka waa suuratu al-Fatiha سورة لو يقان هو القرآن وسورة الفاتحة سؤال شحيتا وحيتا هاي آيات القرآن الكريم كأقول دير وآياتي آيات القرآن الكريم كأقول دير وآيات لو يقان آية الدين يكون سورة البقرة سؤال شحيتا وحيتا هاي ما أعظم آية في القرآن الكريم آيات أقول القرآن الكريم كأوآياتي آية القرآن الكريم كأوين وآية الكرسي آية الكرسي ده لو يقانوية سؤال شحيتا وحيتا هاي سورة القرآن كأوين واتي سورة القرآن كأوين وسورة دي سورة القرآن كأوين وسورة الفاتحة إن بدن ويديك دي كم ده وأي قانين سؤال شحيتا وحيتا هاي ما أول ما نزل من القرآن وحي أقول ري القرآن الكريم سودجا محوها القرآن الكريم كوحي ugu horeeyay ee soo daga waxa weeye waa shanta aayadood ee ugu horeeya suuratu al-Alaq ama suuratu Iqra suurada la yiraahdo shanta aayadood ee ugu horeeya ayaa soo dagay markii quraanka ugu horeeyay ee soo dagay shanta aayadood ayuu ahaa su'aasha u dambaysa ee aan ku soo gabagabeynayno su'aalaheena waxay tahay waxaad sheegtaa shan magac oo quraanka kariimka uu leeyahay shan magac oo quraanka kariimka uu leeyahay shanta magac ee quraanka kariimka uu leeyahay waxa weeye al-kitaab
النور، الفرقان، الهدى، الروح. شنتا مقع أي قرآن كريم كأولية.